midna gudoomiye aad u mahadsan tahay haddii aan dhinaca su'aalaha aan sii wadno inkastoo waqtigana uu cariiri nagu sii yahay waxaa jirta sida aad ogsoon tahay hooyo Soomaaliyeed oo carruurtii laga qaatay sharcigii lagala noqday taasoo la qorsheeyay in Soomaaliya dib loogu celiyo haddaba maxaad arrintaas ka geysateen ka jaarida ahaan waa mahadsantahay hooyada Soomaaliyeed arrinkeeda hooyadaas iyo hooyooyin kale dhacdooyinkaas waa dhacdooyin mar kasta dhaca laakiin hooyadan Soomaaliyeed waxay ugu duuneed ayada arrinkeedu waxay ahayd mana soo marin arrin hooyo sharci in la siiyay laga ceshto haddana la siiyay laga ceshto laba mar iyo maxay ahayd carruurna la qaatay marka arrinkaas hooyo dadaalkeedii aan galnay hadda meel fiican oo mara sida hadda ka soo gudbinayna baaqi ah oo soo gudbina Soomaaliyeed meel kasta joogtay gaar ahaan reer Norway sidee noola garab istaageen waa ugu mahadcelinaynaa boqol oo garab ay noo siiyeen maxkamadii haddeertaana arrinkeeda intuu ku dambeeyay wuxuu ku dambeeyay in ayadii hooyadii waxay xaq u lahayd abukaati au qabanna wixii xaq u lahayd oo u soo dhiciyay oo ilaa ay xad ilmaheeda inta sharciga u ogolaa ay xaq u lahayd inay soo booqato inay sanadka soo booqan karto oo bil kastana ay aado waxa kaloo dhacday maxkamadaha markii maxkamad arrin abukaati ah qabsatid waxaa jirta heer u maro ama maxkamadaha hoos mara oo maxay deegaamo marka dambana mid weyn oo dalka ay u gudbaya hadda wuxuu marayaa maxkamadda weyn Oslo waxa ugu baaqi lahaa ducadina in meesha loo sii wado sidii loo sii wado hooyadana waxa leedahay haddii waqti ay idin xadido qofkii firaaqo heli karo inuu nagala soo qayb galan ah codsa lahaa 23 bisha September 24 bisha September sanada 2019 sanadka hadda lagu jiro oo wax yar ee naga xigto hooyada dhageysi maxkamadeed ayaa dhageysi maxkamadeed ayaa wax uga furmaya Oslo waxa jeclaan lahaa reer Oslo inay nagala soo qayb galaan qosolbahii la waagalaa oo hooyada garabkeeda la soo istaago waa dareemi kartaa qof hooya oo muddo sanadkan joogtay 3 carruur laga qaatay 2 mar sharciga laga qaatay dareenka ay dareemayso marka inay nala wadaagaan ayaa jeclaan lahaan oo hooyada maalintaas garabkeeda la istaago waa ma santii mudana gudoomiye haddii aan su'aashaas aan sii tixraaco sidaan ognahay hooyadaas lacaga badan oo ilaa heer maxkamada loo baahday lacagtii ay jaalida aruurisay ma dhamaatay oo maxkamadda ma ku filnaatay mise waxaa jira lacaga dhiman oo weli loo baahan yahay in dib loo xiro su'aashaas inay weydiisay aad ayaan ugu faraxsanahay waxa sidaan hore u sheegay waan uga mahadcelinayaa kun iyo kow jeer sidii Soomaalida nagu garab istaagtay muddo ayaa u qabanay lacagta cid kastana waa dareemayaa dareenka ay gelisay arrinkaas hooyada iyo sida uga damqadeen waan uga mahadcelinayaa ciddii habeen u qaday iyo carruurtii loo qaday oo arrintaas hooyada sida lagu caawiyo lacagta inta aan ka codsanay oo marka hore aan u baahnay waxay ahayd 130 kun ugu badnaan 120 170 kun ayaan helnay oo hooyadii si laba jibaar si fiican oo raganimo ayaa looga soo jawaabay maxkamadina way kaafisay ilaahna waxa ka rajaynaynaa oo inoosan waxayna naga gaartay inaan masaajidka istaagno oo dadka aan gaarsiino dhahno war waxbana intaas ka badan ha noo soo dirinina arrinkii lacagtii la heli lahaa waa nagu filaatay waa naga badnaatay haddana waa uga mahadcelinayaa dal iyo dib dadka ka qayb qaatay oo Adeer Ciise ugu horeeyo madaalaha ilaahay miisaankiisa Allah u saaray dhammaan dadkii si dadban iyo si muuqda uga qayb qaatay arrinkaas marka arrinta hooyada lacagtina waa la kaafisay maxkamadii kalena ilaah waa noo fududeeyay oo haddeertaan meeshii aan idin sheegayo maxkamadda weyn Oslo ayay maraysaa marka hana loo soo duceeyo hana la dhiirigeliyo Soomaalinimana sida isku caawinaysiin waa idinka mahadcelinaya sida noo kalsoonida loo muujiyo oo sida fudud noogu soo jawaabteen waa idinku mahadcelinaya waana idinku duceynaya bedel qaar qabanaysiin